kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada mid ka mid ah barnaamijyada aan ku qaadayno Koonfur Afrika. maanta waxaa marti inoogu ah Cabduqaadir Waafi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika lana shaqeeya ciidamada booliiska wuxuuna ka hoos tagaa waaxda shanaad ee Sector 5 Police Forum magaalada Cabduqaadir Waafi goorma ayaad bilowday arintan aad la shaqeynayso ciidamada booliiska ee dalka Koonfur Afrika maxaa ku dhaliyay بسم الله الرحمن الرحيم magacaygan ku bilaabaya Cabduqaadir Xasan Maxamed waxaan salaamayaa dhamaan ummadda halka iga daawanayso ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay assalaamu calaykum mar labaad waxaan nahay nin ka mid ah Soomaalida degan xaafadda Mayfair waan ka shaqeystaa waxaan ka mid ahay ganacsatada reer Mayfair waxaan la shaqeeyaa community-ga waxay shaqada aad qabatid maxay tahay marka aad community-ga la shaqeysay shaqooyinka aan qabto waxaa muhiimka ah horta inta badan waxaan isku dayaa wax baahi walba inaan baahi tiro dadka ma baahi tiri karo laakiin waxaan aad ugu dadaalaa sidii aan ugu dagaalami lahaa kareemka jokaraayada drug dealerska inta baan rabaa inaan xaafadda ka mamnuuco haddii ilaahay ila garab galo insha Allah aniga qaasatan waxaan ku biiray community police forum 2015 bishii shanaad laakiin waagi hore santa kale aan ka shaqeyn jiray waxaan halkan Mayfair ka bilaabay shaqadan markii laga soo bedelay xarun Central Police Sector 5 markaan ku soo biiray baan bilaabay waxaan ugu soo biirayna waxay ahayd codsi aniga aan codsaday because waxaan ka shaqeyn jiray xaafadaha kale anoo ka patrol gareynayo markaan dhaha Mayfair aan caawa patrolling ka sameeyno yaa waxa la dhigi jiray Mayfair waa shit area macnaheedu waxa way xaafadda wasaqda badneed waayo waa xaafad aad u xun oo qarmuun ah patrolling-ka waxaad ka wadaa gaafureega ama roondada waan ka wadaa patrolling-ka marka waxaan la shaqeyn jiray sida badan rag hindi ah oo community-ga xaafadda degan ka mid ah xaafadda waan wada deganahay laakiin xaafaddooda way nadiifsadaan way u taagan yihiin waxaa ka mid ah odayaal 60 jiraal baa habeenkii nala shaqeeya oo ilaa ay waxay nala wareegaan 8 saacadood camal okay tan waxaad ku jirtaan arintan la dagaalanka drugska iyo darbijiifka iyo dhibaatada Mayfair community-ga Soomaalida ee aad ka mid tahay adiga ma ka heshaan garab youth-ka laakiin odayaasha xaqooda kama helno sida badan youth-ka aad support badan aan ka helnaa youth-ka way nala shaqeeyaan rag badan baa na caawiyo hatta ninkan garabna siinin afku naga taageeraa oo markuu naarko wuxuu noo duceeyaa wuxuu dhahaa khayr ilaahay idin siiyo waxyaabaha aan qaban waxa ka mid ah nadaafadda sanitation-ka oo markii la gaaro weekendiga xaafadda waa nadiifinaa hadda ka horna waan soo gudbinay xaafadda waa nadiifinaa wasaq ahaan baan u nadiifinaa cadow ahaan waan u nadiifinaa drugs ahaan waan u nadiifinaa marka dhan walba waa ka nadiifinaa insha Allah taasna ilaahay baan kaga rajaynaynaa annagoo oona ka helin ku raadinaynin lacag mishaar kuma qaadano magac kuma raadsano laakiin waxaan community ahaan baan rabnaa inaan u muuqano kaliya oo wadanka waxa degan laguma noolo South Africa haddaan South Africa way yaqaanaan ummadda si badan booliiska sida badan waa booliis shaqeynaya oo dawladdu way shaqeysaa mid kale waxaad ogaanaysaa dawladdu inay shaqeyso markaad la shaqeysid baad ogaan kartaa waxtarkeeda laakiin uma aragno dawladdu inay wax qabato nin walba gurigiisa soo ku jira wuxuu ku leeyahay booliisku wax naga qabto ninaad quraac siisay booliis wax kaga kama qaban karo because haddii asaga maago waxa leeyahay social worker ku dhigayo oo qolyaha social worker ku dhigayo marka waxa loo arkaa in asagii uu mucaaradayo masaakiin dadka halka ku noolaa oo drug dealerskiiba waxay leeyihiin miyaho annaga Soomaalidii aan ku ganacsan lahayn dhaxdeedii dib naguma hayso ninkiin booliiska ah dib nagu hayo marka Soomaalida waxaan ka codsanayaa meel walba oo joogan caalamka ma aha kaliya Mayfair baaqa aan dirayo waxaan u dirayaa dunida dacaladeeda meel walba oo joogan dunida haska nadiifiyeen drugska haska nadiifiyeen creamka haska nadiifiyeen wax walba oo magacooda loo wasti ka dhigayo ha ka hortaga nadaafadda nadaafad la'aan waa caafimaad darro cudurku wuxuu bilowdaa markay nadaafad darro imaato inta waa iga baaq wadankii baan u dirayaa qurbo joogtaan u dirayaa waan aragnaa TV-yada dunida meel walba ka deganahay way ugu nadaafad xun tahay waxaa la dhahaa Soomaalida meeshay deegaanba waa iska wasaq dad islaam baan nahay islaamku waa clean islaamka wasaq ma isticmaalo wasaqda wadooyinka kuma tuuro marka haddaan nahay dad islaam ah aan isnadiifino oon ummadda kala tusno wanaageena iyo horumarkeena
dad wax tara aan noqono dadkii meesha aan ugu imaanay waa dad muslimiin aan ahayn waa dad gaalo ah markaad adana islaam banahay what is the muslim is clean so muxuu clean ku yahay xaafadiisa hortiisa waxaa tuuran wasaq waxaa lagu soo qaadanaya clean tahay xaafadaada ma aragtid marka intaas waa baaq Soomaaliyeed waa baaq walaalada Soomaali meel walba joogaan u diraayo waxaan Cabduqaadir xilliyada Ramadaanka ama xilliyada salaadaha ah shaqadiinu maxay tahay wadankan waan qabanaa waxyaabo badan oo Ramadaanka aan qabano South Africa waxaa ka jira Sterlingka ka baawartu waa la xadaa dadka intay salaada ku tukanayaan waxaan waardiinaa baawartii xitaa waxaa dhici karta kawaha in aan waardiyeyno waxaan u shubnaa biyihii marka ragga waa isqaybiyaan qaarna baawarta ay waardiyeen qaar gudaha masaajidka ay ka shaqeeyaan oo dadka jamaacada tukanaysa ay caawiyaan ama saf ahaan ha u caawiyaan ama cabitaano markii salaada la nasanayo ay u shubaan ama shahada xitaa loo qaybiyaa marka insha Allah waa sameynaa hawlo badan oo u qabano masaajidka ijtimaaciyana waxaan ka qabanaa waan waardiyeynaa sida badan because South Africa gaariga meel dhigo oo waardiyo isu meesha taagneen waa la jabsanaya baawarka waan la dhacayaa marka waxyaabahaas baan kala dagaalanaa oo u qabanaa xiriirka idinka dhaxeeya booliiska iyo idinka ilaa intee ayuu gaarsiisan yahay sidee u wada shaqeysaan Soomaali haddaan nahay booliisku waan ka cararnaa waan la dagaalanaa ummadda waxay u baahan tahay in la fahmo ayagu way nala yaaban yihiin waxay leeyihiin markii xaafadda la soo galay waa dukaamada loo xiraa annaga waxaan waragnaa booliiska inayna dhacayaan ayagana waxay u arkaan in dukaamada la xirayo alaab lagu dhex qarinayo marka waas way aan ugu biirnay booliiska inaan la shaqeyno oon fahansiino xaafadan inaan lagu gadin drugs inaan lagu gadin sigaar inaan lagu gadin tobacco inaan lagu gadin waxyaabo muqaadaraad ah ama something crime waxyaabahaas ayaa ka mid ah waxyaabaha booliiska aan uga shaqeyno haddeer way dhacdaa markay magaalada soo galaan xaafadii way inoo soo baaqaan before ayna imaanin bay leeyihin xaafadii oo kusoo aadannahay Cabdiqaadirow dee la soco timekaas baan soo gelaynaa ay noo sheegaan timeka ay soo geli lahayeen annagana aan u istaagno howlaheennii saan ula shaqayn lahayn booliiska oo dadkeennina aan u dabali lahayn oo si ay dhibaato u soo gaadhin booliiskana howlaha ay leeyihiin danaha ay leeyihiin ayagoo faraxsan habi ah xaafadda ay u arkaan xaafad wanaagsan oo waxba daroogo lagu gadin kalena ka jirin uniformka aan wadano waa 75 community police forum saa u aragtaan dowladdana siisay waana loo soo dirtan jiray koofiyad buu leeyahay finaanadu leeyahay marka waa uniform dhammaystiran dowladdana na siisay waxay noo siiyeen in laga aqoonsado because waxaa ku qoran part of the police waxaan nahay qayb booliiska ka tirsan dhibaatada jirto oo dhibka iga soo gaaro waxyaabaha ugu badan waxay ka mid tahay waxa aniga aan arko misana aysa community-ga la arkin dhowr goor baan report ka gudbinay ninka annaga waxaan deganahay xarada xaafadda Mayfair Johannesburg waxaa laga maamulaa Sector 5 Ward 58 bay ka tirsan tahay Johannesburg markaan reportka booliiska waan la shaqeeyaa markaan report gudbiyey jawaabta la siiyay waxay ahayd Cabdiqaadir nimanka jokaraayada ah iyo drug dealers ninka meesha ku haystaan adduunyada waxaan laga helin waxaa jirto lacag for free ah cunto for free ah jiif for free ah waxay ka mid tahay macnaheeda Soomaalida ninka jokaraaga markay arkaan waxay siiyaan lacag u dhigmato $10 hal mar kaliya $100 bay gacanta u saaraan waxay ugu daraan maqaaxida markuu hor istaago bacdi raashin baa loo buuxiyaa wuu dhigay lacagna wuu helay jiifka guriga hortiisa soo seexanaya marka already ninkaas wuxuu haystaa lacagta darawada ku gadan lahaa jiifka for free-gaha iyo cunto for free ah marka ninkaan la kulmay nin commando ahaa wuxuu yiri aniga haddaan heli lahaa jiif free ah iyo cunto free ah iyo lacag for free soo gasho ma shaqeeyaan buu yiri marka that's why annaga dawladda aan waxba uga qaban karin until community ahaan ilaa ay community ahaan ula dagaalantaan jokaraayada marka kadib waan idin caawin karaa haddii aad midowdaan soo annaga ka Soomaali ahaan waxaa naga maqan waxa la dhahayo mideen ama united because shaqo annagoo hayna hadda dhibka noogu badan waxay tahay annagoo dagaalamayno oo xaafadii wax u qabanayno
oo cadowgii xaafadeena weerarayay dhicinayno mid ka mid ah wuxuu ku leeyahay war maxaa kartaan ummaddan aan u laynaysan ma iska daysaan habeenka ka dambaysa gurigiisa la gelaya la jabsanayaa bishan ama xilliyada ugu dambeeyey faylka ama dhibka ka dhaco deegaanka Mayfe ee Johannesburg haddii aad khibrad garayseen imise ayaad sheegi kartaa oo aad og tihiin haddii ay jiraan guryo la jabsaday waxyaaba aad khibrad garayseen ilaa meeqa la gaaraya ma sii fogeynayo bisha maarso laga soo bilaabo ilaa maantadan aan joogno waxaa dhacay 3 dil xaafadda waxaa iyo 2 gaari oo la dhacay waa jiray laakiin Soomaalida dhibka asaga ah waxba kama soo saameynin alxamdulillah because waxay ahaayeen kaliya umad kale oo walaalaha waddanka nala degan buu quseeyay kaliya Cabduqaadir barnaamijkan inta aad ku guda jirteen isbedel ma ku yimid xaaladda ammaanka ee magaalada Johannesburg ee Mayfe aad ka howlgashaan inta aad ku jirteen arrintan aad wadaan isbedel ma jiraan oo xaafadda ka dhacay oo maadaama aad samayseen ciidamo madani oo la shaqeeya booliiska isbedel ma jiraan maalmahan dambe ha isbedelku wuxuu yahay muhiimadda hadda aan soo taaban karo waxay tahay xaafadda waxaa jiri jiray guriga dukaanka ku ganacsanaysid riddiisa in lagu kala gato daroodo oo hortaada markaa dhacday iyo dhaqaaq uu kugu dagaalamo ninka kuraaga hadda laakiin xaafaddu waxay noqotay xaafad nadiif ah oo dukaan iyo ganacsi wadada midna aan qusaynin soo markaad bidaantada yarkaana meeshay ka arkaan ay ka sii cararaan ay ku aqoonstaan rag oo isku xiran isku duuban wax ma qabsan karo inay yihiin because waagi hore way niyasi jireen markaan la hadalno waxay jireen qorqora tahay meesha saga bax soo hadda laakiin waxaan noqonay dad mintid ah oo isku xiran amarkiisana shaqaynayo ha jukraayada waan nadiifinaa meelaha ay jiifaan waan nadiifinaa wasaqda waa qaarna baawar baan ku daldarnaa qaar waxaan ka gaari weynaa baawarna waa gubnaa sidooda ku gubnaa marka xaafadda waan nadiifinaa waxa aan gubno waa wasaqdi iyo alaabaha qashinka oo ay wasaqda dustbinka qashin qubki waxyaabahaas aan gubnaa oo marka intaan gaariga saari weynayaan sidooda ku gubnaa kaasi wuxuu ahaa Cabduqaadir Waafi oo igu waramayay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika wuxuuna qayb ka ahaa barnaamijka bandhiga Universal TV waan kaga mahadcelinayaa Cabduqaadir waa mahadsantahay Cabdi Xasan